maamulka Somaliland ayaa war ka soo saaray markabkii hubka ah oo dhawaan u gacan galay ciidamada badda ee maamulka Puntland. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo war qoraal ah ku daabacay bartiisa X hore loo oran Twitter in cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya laga qaaday ay ahayd mid lagu degdegay oo aan xilligan ku habboonayn. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in cunaqabataynta laga qaado hubka ee Soomaaliya laga dhaxlay cawaaqib xumo iyo sidoo kale xasilooni darro ku soo korortay geeska Afrika. waxa uu intaas ku daray in qabsashada ciidamada badda ee maamulka Puntland ay qabteen markabkan hubka waday dhiirigelinaysa kooxaha burcadbadeed oo muddo dhowr jeer maraakiib ka qafaashay gudaha dalka Soomaaliya. waxa uu intaas ku daray in haddii Soomaaliya aan dib loogu celin cunaqabataynta hubka ay sii kordhi karto amni darrada iyo xasilooni la'aanta ka jirta bariga geeska Afrika. waxa uu sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay in dib u qiimeyn ay ku samayso ka qaadistii cunaqabataynta hubka beesha caalamka ay ka qaadeen Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inay ka soo korortay khatar aad u weyn. warkan ka soo baxay Somaliland ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan ciidamada badda ee maamulka Puntland markab huba kaasoo ay ka soo qabteen xeebaha maamulka Puntland. hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ilaa haatan wax war oo rasmi ah kama aysan soo saarin markabkaasi cidda iska lahayd iyo halka loo waday.